bishii June sanadkii hore ee 2025 madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si lama filaan ah uga hadlay telefishinka isaga oo ku dhawaaqay in xarumihii nukliyeerka ee Iran si buuxda loo burburiyay. hadalkaas hal jumlad ah wuxuu bedelay jawiga siyaasadda caalamka. warbaahinta qaar ayaa laga dabaaldegay falanqeeyaashana waxa ay ku kala ordeen micnaha hadalka. gobolka bariga dhaxana wuxuu qaaday wax loogu yeeray nafis sanado ka hor u lacaa, laakiin dhowr bilood kadib nin uu isla madaxweynuhu si gaar ah ugu dirsado wadaxaajoojyada ugu adag ayaa ka hadlay isla telefishinkaas isaga oo sheegay in Iran toddobaad kaliya ay u jirto inay hesho qalab ku filan samaynta hub nuclear. waa uun hal toddobaad kadib weerarkii la sheegay inuu wax walba dabar gooyay. halkaas ayay su'aaluhu ka bilaabmayaan. haddii weerarku burburiyay oo uu dabar gooyay barnaamijkii nuclearka Iran, xagee ayaa toddobaadkan warkan ka yimid? haddii uusan burburinse maxaa shacabka laga qariyay bilihii la soo dhaafay? su'aalo waaweyn ayaa halkan ka ratimaya. ma runbaa in barnaamijka nuclearka Iran la soo afjaray? maxaa ka soo baxay warbixinada sirdoonka ee gudaha Mareykanka? dunidu ma u dhowdahay marxalad cusub oo hub nuclear lagu kala cabsi geliyo? su'aalahaas iyo kuwa kale waxa ka jawaabaysa tabinteena Tifaftir Media oo aan si gundheer ugu faaqidayno tallaabooyinkan iyo macluumaadka ku xeeran. soo dhawaada. waa hagaag mar kale kulan wanaagsan. haddii ay tahay markaagii ugu horeysay ee aad daawanayso Tifaftir Media, waxaan ka rajaynayaa inaad ka mid noqoto bahda nagu xiran, saaxiibadaada la wadaagto, isla markaana aragtidaada aad noogu reebto qaybta faallooyinka ee commenteska. aan toos u abaarno tabinteena. 21 bishii June ee sanadkii aan ka soo gudubnay 2025, Mareykanku wuxuu qaaday mid kamid ah weeraradii ugu waaweynaa ee military ee gobolka ka dhaca 10 sano. in ka badan 100 diyaaradood, 7 kamid ah kuwa qarsoon ee qaadan bambaanooyinka culus iyo maraakiib badda hoostooda mara ayaa gantaal fog ridayay. bartilmaameedyadu waxay ahaayeen 3 goobood oo muhiim ah: magaalada Fordo, xarun ku dhex taal buuro; Natanz, xarun ku dhex taal dhulka hoostiisa; iyo Isfahan, magaalo ku taala goob sare. saacadihii ugu horeeyay aqalka cad wuxuu ku dhawaaqay guul buuxda. wasiirka difaacuna wuxuu sheegay in burburka gaaray barnaamijka nuclearka Iran uu yahay mid dhammaystiran. laakiin gudaha hay'adaha sirdoonka, warbixino kale oo la diyaariyay, qaar ka mid ah qiimeynta hore waxay tilmaameen in inta badan waxyeeladu gaartay dhismayaasha dusha sare, halka qalabkii muhiimka ahaa ee ku jiray gunta iyo keedkii maadooyinka halista ahaa ay si buuxda u nabad galeen. warbixin dambe oo ka timid Pentagonka ayaa sheegtay in dib u dhiska uu qaadan karo 2 sano. qiimeyn hordhaca oo sirdoonku sameeyeen waxay tilmaantay bilo yar. warbixino kalena oo madax bannaan waxay xuseen in waxyeeladu ka yar tahay sida la sheegay. hal qodob oo ay isku raaceen saaxiib iyo cadowba wuxuu ahaa in barnaamijka nuclearka Iran aan laga takhalusin. siyaasadda gudaha Mareykanka, maxaa ka soo baxay kulamada sirta ah? hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga ee aqalka sare ayaa codsaday kulan degdeg ah oo gaar ah markii warbixin la siiyay hadalladoodu way isbedeleen. ereyga ugu isticmaalka badanna wuxuu ahaa khatar. mid ka mid ah xubnaha guddiga sirdoonka ayaa xitaa ka hadlay suurtagalnimada in Iran u wareegto hubka wasakhaysan ee Daytebam, erey aan si fudud loo adeegsan karin haddii aysan ka dambaynin xog rasmi ah. isbarbardhigga hadalka aqalka cad iyo digniinaha ka soo baxaya qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha ayaa muujinaya kala duwanaansho cad. bishan Febraayo 2025, wakiil gaar ah oo Mareykan ah ayaa sheegay in Iran ay gaartay heer kobcin ah oo aad u sarreeya, isla markaana toddobaad uun gudihiis ay uga harsan yihiin inay helaan maaddo ku filan si ay u samaystaan hubkooda nuclearka. 3 ilaa 5% waxaa loo isticmaalayaa hubkaas mid madani ah, 90%na waxaa loo adeegsanayaa nuclearkaas heer hubeed. taasi waxay muujinaysaa in weerarkii hore uusan joojin kobcinta heerka sare ah ee barnaamijka nuclearka. 1 Febraayo 2026, gobol ku yaala koonfurta Iran waxaa laga diiwaan geliyay dhulgariir cabirkiisu ka sarreeyay 5 darajo. xarumo cabirka hirarka dhulka ah ayaa arkay astaamo u eg qarax dhulka hoostiisa ka dhacay. falanqayn farsamo ayaa tilmaamaysa in qaraxyada noocan ah ay leeyihiin saxiix gaar ah oo ka duwan dhulgariirada dabiiciga ah. goobta ay mashaqadu ka dhacday waxay u dhoweyd xarun nuclear oo la yaqaan. Iran si rasmi ah uma aysan shaacin wax tijaabo ah, laakiin tuhunka ayaa kordhay. Dmitry Medvedev oo ah mas'uul sare oo Ruush ah ayaa ku eedeeyay galbeedka inuu isku dayayo inuu kordhiyo awoodaha military ee Ukraine, wuxuuna sheegay in Ruushka uu si la mid ah taas uga jawaabayo. hadalkaas wuxuu ku soo aaday iyada oo lagu muransanaa horumarka nuclearka Iran. isbahaysiga farsamo ee u dhaxeeya Moscow iyo Tehran ayaa muddo la falanqeynayay, inkasta oo caddayn buuxda oo dadweyne aan la soo bandhigin. bilaha xigay 2 markab oo kuwa diyaaradaha xambaaro oo Mareykan ah waa USS Abraham Lincoln iyo USS Gerald Ford ayaa loo soo diray gobolka.
diyaarado culus ayaa la geeyay saldhigyo durugsan dhinaca kalena Iran waxay leedahay kumanaan gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn cid walba waxay diyaarinaysaa waxa loo yaqaano xulashada ugu dambaysa marinka Hormuz waa halka uu maro ku dhawaad 3 meelood meel shidaalka dunida haddii halkaas la xiro qiimaha saliidda wuxuu gaari karaa heerar aan horey loo arag dalal badan ayaa bilaabay inay muwaadiniintooda uga digaan inay ka baxaan gobolka dhaqaalaha dunida oo hore u jilicsanaa wuxuu wajihi karaa jahawareer culus haddaba maxaa ka dambeeya run mise cadaadis siyaasadeed qaar ka mid ah falanqeeyayaashu waxay soo jeedinayaan in dhaqdhaqaaqyada military ay noqon karaan cadaadis lagu doonayo wada xaajood cusub taariikhdu waxayna baraysaa in mararka qaar xiisad sare loo abuuro si heshiis loogu qasbo dhinac kale laakiin marka hub nuclear lagu ciyaarayo khalad yar ayaa isu bedeli kara musiibo weyn si kastaba ha ahaatee haddii la isku soo duubo macluumaadka weerarkii bishii Juun la qaaday ma uusan joojin gabi ahaan barnaamijka nuclearka Iran waxay gaartay heer kobcin sare ah dhaqdhaqaaqyo military oo waaweyn ayaa socda dhaqaalaha dunidu wuxuu ku xiran yahay hal marin badeed dunidu waxay u muuqataa inay gashay marxalad cusub oo cabsida hubka nuclearka mar kale ay noqotay aalad siyaasadeed su'aashu hadda waxay tahay ma la gaari doonaa heshiis cusub mise waxa la gelayaa iska hor imaad aan cidina ka badbaadi doonin adigu maxay tahay aragtidaada ma u malaynaysaa in dagaal ballaaran uu dhici karo mise tani waa cadaadis siyaasadeed oo ku dhammaan doona miiska wada xaajoodka ku qor fikirkaaga qaybta faallooyinka ee commentiska la wadaag muuqaalka saaxiibada hana iloobin inaad ku soo biirto Tifaftir Media si aad ula socoto falanqayn qoto dheer oo ku saabsan arrimaha caalamka intaanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan